الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada cashar imtixaanaha aan ugu talagalnay ardayda beginnerka ah waan uga hadli doono luqadda loo yaqaano SQL Structured Query Language. Luqaddan waa luqad aad iyo aad muhiim u ah marka la joogo database-ka waana luqadda ugu badan ee la isticmaalo. Concept-geedana haddaad qabatid waxay kuu fududaanayo luqadaha kale ee la xiriira database-ka iyo waxyaalahaas inaad si fudud u fahmi kartid. Anigoo Maxamed Cabdullaahi Maxamuud ayaana idin la sheergarayn doona insha Allah. Marka databasesku badanaa waa xog laisku soo aruuriyey laguna keediyey meel container ah qaab format garaysan oo standard loo keediyey. Waxaan loogu talagalay in users fara badan ay sheergareeyaan. Halka awal la isticmaali jiray files waa laga tegay oo hadda waxaa la isticmaalaa databases. Cillado badan uu leeyahay fileska awgeed. Databaseskeenu marka waxaa loo isticmaalaa system oo jiro loogu talagalay lagu maareeyo loona yaqaano DBMS ama Database Management System. Waa software loogu talagalay in database-kii lagu abuuro lagu drop garan karo ama delete loogu samayn karo xog loogu shubi karo database-kii xog looga soo akhrin karo. Application-ka marka la develop garaynayo badanaa waxaan maqalnaa application la develop garaynaa back-end-giisa marka waa database-kii. Design-ka markii la yimaado application-ka stages badan uu leeyahay oo loo yaqaano system development life cycle. Marka cycleskaas markii la soo gaaro qaybta design-ka waxaa imaanaysa in qofkii database designer-ka ahaa uu ka fakaro business processeskan uu haysto inuu u bedelo database. System kastoo la sameynayo marka database-kiisa hadduusan fadhin ma noqonayo successful. Marka qofka database designer-ku wuxuu sameynayaa datadii business ruleski ama processeska businesska shaqada uu qabanayay ayuu wuxuu u bedelayaa marka database. Wuxuu abuurayaa tables relationships-ka ka dhexeeya one to many miya many to many miya si hadhowdii system-kaagii uu noqdo mid ula jaan qaadi karo application kasta. Marka application-ka design gareynaysid business ruleska ogaanaya oo processkan qaabka u shaqeynayo kadib business ruleskaasa waxaa u bedeleysaa tables iyo maxaa la database u bedeleysaa oo ka kooban tables iyo views iyo stored procedures-ka. Relationship ka dhexeeyana waa inaad ogaataa marka aad tableskaas sameynaysid. Marka database-ku faa'iidooyinka uu leeyahay maxaa ka mid ah? Awal dadku waxay isticmaali jireen files. Haddii aan ku hormarno fileska cilladihiisa fileka hore la isticmaali jiray wuxuu lahaay duplication fara badan xogtii isku soo laalaabato taasoo keenaysa in storage-kaadii computer-kaagii uu buuxsamo ama ay adag tahay in la update gareeyo fileska oo dhan because of duplicate-kaas kasoo daba badanayo ama copy. Datada flexible ma aha way adag tahay inaad qayb ka mid ah datadaas aad bedeshid. Data sharing-kiisuna aad ayuu u yaraay oo u xadidan yahay. Aad ayayna u yar tahay in maxaa la dhahaa standardskiisa oo ku qasbaya markaad data aad gelinaysid iyo kale ma lahan waxyaalo aad u badan oo ku qasbaya constraints badan. Program-kaasna marka wuxuu u baahan yahay dayactir joogto ah markasta. Marka waxaa lagu xaliyey database-ka problemskaas waxaa xalinaya database-ka wuxuu yareeyay datada soo laalaabanaysay iyadoo la isticmaalayo constraints iyo macnaha tables loo diyaariyey in lagu keediyo xogtii. Datadaadii sharing-keedu aad ayuu easy u yahay. Waxaa kaloo jiro standards ku qasbaya for example table aad joogtaa table-kan xogta lagu xareynayo student oo kale lagu xareynayo student telephone number-kiisa waxaa ku xadidaysaa inaan meeshaas la soo geli karin qoraal oo kaleeto oo maxaa la dhahaa Maxamed oo kale student number-ka inaan column-kaas la soo gelin oo uu noqdo
mid loogu talagalay number kaliya in lasoo geliyo marka application in lagu develop gareeyo database-ku aad iyo aad ayuu u fudud yahay. Datadii marka waxay noqonaysaa daato saxnaanteeda iyo privacy-geeda iyo security-geeda aad ugu sugan yahay boqolkiiba inta markaas oo system-kaas jiro. SQL Server waa structured query language-ka SQL-ka soo hadlaynay. Language-kii ayaa waxaa loo isticmaali doonaa in database-kaas lagu maareeyo. Oo cashiradan waxay ku siin doonaan xoogaa yar oo bilow ah si aad concept fiican uga qaadatid SQL. Topics-ka muhiimka ah oo core-ka u ah SQL-na waan ka fargarayn doonaa si aan fahankaaga oo basic ah aan u dhisno. Marka sidaan hore usoo sheegnay SQL-ku waa query language-ka ugu badan ee la isticmaalo database markii la joogo. Haddii marka concept-geeda aad qabatid languages kale oo ku fududaanayaan sida Oracle iyo MySQL iyo marka SQL-ku marka wuxuu u ogolaanayaa qofka user-ka ahaa in uu datadiisa access garayn karo, in database u abuuri karo, inuu tirtiri karo, inuu xog geli karo, inuu xog ka bixi karo, inuu xog ku jirtay bedeli karo oo modification ku samayn karo, in userskii permissions uu kala samayn karo table hebel user-kan waa access garayn karaa iyo ma access garayn karo. SQL-ka marka wuxuu leeyahay commands loogu talagalay in lagu isticmaalo markii la joogo query-ga aad qoraysid. Waxay u kala baxaan 3 oo main ah: data definition language oo in aad creation samayn kartid, inaad modification samayn kartid, inaad drop samayn kartid oo macnaha wixii aad tiri kartid. DML ayaa ku xiga oo ah data manipulation language oo loogu talagalay in wax aad manipulation ku samayn kartid ama bedelitaan datada sida inaad soo select gelisid oo retrieve inaad ku samayn kartid, inaad insertion samayn kartid data aad geli kartid table-kaaga, inaad update garayn kartid, inaad deletion ku samayn kartid, inaad delete aad dhihi kartid data meesha ku jirtay. Data control language waa qaybta saddexaad, waa qaybta permissionska grant revoke. Intaan iyo kuwo kaloo ka badanba mid mid ayaan u dul istaagi doonaa insha Allah. Database-ka markii la imaado oo la abuuro wuxuu ka kooban yahay tables iyo waxyaalo kaloo la xiriiro. Table-ku marka waa datadii isla xiriirtay in isku meel lagu kala dhigo. Table-ku wuxuu ka kooban yahay columns iyo rows. Hadda kan aad ujeediin oo kale waa table usernames datadaas ku jirto, kan waa user ID, kan waa column, kanna waa row. Fieldiga lagu sheegayo waa column ama column sida joog verticalka. Record-ku ama row-guna waa row-gan aad ujeedid waa hal xog oo dhammaystiran. Cashirkeena ku xigana insha Allah waan geli doonaa. Waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum.